inaan la socodsiiyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan hay'adaha la yiraahdo law enforcement-iga ama hay'adaha la yiraahdo sharci fuliyaalka oo ay ugu horeeyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo xafiiska xiraalintu in ay badatay ku tumashada sharciga ee khaas ahaan mas'uuliyiinta qaranka noocay doontaan waxaan noqdaan sidaa darteed waxaan rabaa inaan iclaamino in laga bilaabo maanta waxaan dhammaan xafiiska xiraalinta iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed hoggaanka baarista dambiyada iyo hay'adaha ku shaqada leh oo dhan aan u jeedinayaa in ay qabsadaan waajibaadkooda shaqo oo ku aadan hirgelinta sareynta sharciga sidaad ogtihiinba sharciga waa loo siman yahay cid sharciga ka sareysaana ma jiro mas'uul kasta ahaw xasaanad kasta lahaw xasaanadu macnaheedu ma aha oo kaliya inaad dambi ku gashid xasaanadu macnaheedu waxa weeye inaad sharciga ku ilaalisid haddii aad sharciga ku ilaalin weysana kullay sharcigu wuxuu qabaa in qof kastaaba uu sharcigu ka sareeyo ka soo bilow madaxweyne ilaa qofka ugu hooseeya ee shaqaalaha dawladda ama mas'uuliyiinta dhammaantood sharciga hortiisa waa loo siman yahay waxa kaloon rabaa inaan caddeeyo inaan laga yeelaynin qofna sida uu qaanuunku qabo sharcigaas lama soconin waxaas inuu dambi ahaa ma ogeyn sidaa uma malaynaynin inay dhacdo sharciga markuu soo baxo wuxuu leeyahay character ama wuxuu leeyahay dabeecad inuu yahay dhammaan in la wada og yahay mar alla markii la soo saaro oo lagu soo saaro faafinta rasmiga ah sharciga waxaa loo ihtimaalaa inuu yahay wax la wada og yahay cid laga yeelayo waxaas inuu fal dambiyeed ahaa ma ogeyn ma jirto sidaa darteed waxaan rabaa inaan caddeeyo in ay jiraan mas'uuliyiin xildhibaano maalmahan ayaamahan dambe ku mashquulsanaa duminta dawladnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed ayagoo adeegsanaya dhaqaale ay ka heleen dalal ajnabi sidaa darteed ay laga maarmaan tahay in talaabada sharci ah ku haboon laga qaato qofkii uu ku cadaado fal dambiyeed waxaan rabaa inaan sheego hay'adaha baarista waxay amar u qabaan in ay baaris ku sameyn karaan si sharciga waafaqsan mar walba in ay baaris ku sameyn karaan tuhun kasta oo fal dambiyeed oo jira inay ku shaqeeyaan iyagoo sharciga dhowraaya ayagoo qaanuunka tixraacaya annagoo taa marayna annagoo halkaa ka duulayna darteed waxaan maanta golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamankaba aan u gudbinay qoraal caddaynaya laba xildhibaan oo abaabul iyo sharci darro iyo qaran dumisnimo lagu eedeynayo caddaymaheedii iyo baaritaankeediina uu dhammaystiran yahay in ay xasaanada ka qaadaan si loo horgeeyo sharciga baarista dhimana loo dhammaystiro xildhibaanku xasaanad buu leeyahay laakiin dambiga excuse kama aha macnaha wuu geli karaa fal dambiyeed sidaa darteed golaha shacabka waxaan ka codsanaynaa si sharaf looga codsanaynaa iyo baarlamanka in xildhibaanadaas aan qoraalka ka soo saarnay oo baaritaanka ku socday in laga qaado sida uu qaabku yahay xasaanada laga qaado si sharcigana loo horgeeyo muxuu ahaa isheeg baaritaan dhammaystiranna loogu geysto labada xildhibaan oo magacyadoodu ay kala yihiin xildhibaan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye labada xildhibaan oo baaris dheer kadib xafiiska ay u muuqatay in ay galeen fal dambiyeedyo u baahan in baaris lagu sameeyo si marka baaristaas loo dhammaystiro isla markaasna haddii uu noo muuqato aan ku horgeyno maxkamadda awoodda u leh waxaan golaha shacabka iyo baarlamankaba ka codsanaynaa iyo gudoomiyahaba in labada xildhibaan aan magacyadooda sheegnay laga qaado xasaanada kolley dambiyada loo haysto iyo qodobada loo haysto way ku qoran yihiin qoraalka aan qornay
sidaa darteed uma baahna faahfaahin dheeri ah intaas ayaan rabay inaan la wadaago waxaa kaloo rabaa inaan sheego cid kasta oo uu galo tuhun ah faldambiyeed mas'uul ha ahaado xildhibaan ha ahaado ama qof muwaadin ha noqdee in sharcigu uu itiigsanayo bahda saxaafadda waxaa soo badatay waayahan in saxaafaddu ay aad iyo aad iyo aad xadgudub xadka ka baxsan oo qaanuunka waafaqsanayn ay ku kacaan ama aqoon la'aan ha u geyso ama si ku talagal ha u geystaan waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ku xadgudubta sharciga inta qaanuunka ku siiyey xor baad u tahay qaanuunka inaad ku dhaqantaan haddaad qaanuunka ku xadgudubtaan sharciga inaad feesgareynaysaan amar ayaan idinku siinayaa cid kasta oo isku dayda xadgudub sharci oo ama ha noqoto saxaafad ama ha noqoto cid kaleba ama ha noqoto khalkhalgelin in tallaabada sharci ee ku habboon aad ka qaadataan oo sharciga iyo kala sarreynta iyo kala dambeynta loo hoggaansamo cidna waxa uu qaanuunku siiyey lagama qaadayo cidna laguma xadgudbayo laakiin ama ogaal ahaan la'aan ha noqoto ama ku talagal ha noqotay waxaa aad u batay inaan loo aaba yeelin ku tumashada sharciga sidaa darteed xafiiska xeraalinta iyo hay-adda booliska qaranka Soomaaliyeed khaas ahaan hoggaanka baarista dambiyada oo taliyaalkoodii oo dhan ay garab fadhiyaan waxaan ku waajibinayaa oo dhammaan maqlaya in ay dhowraan sharciga cid kasta oo sharciga ku xadgudubtana in sharciga la hor keeno aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan ku daraysaa